kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa channelka Fandor Media oo alaabin sugu barnaamijyo xiiso leh warar iyo warbixino maanta barnaamijkan aan kusoo qaadanayna maxaad kala socotaa arooska King CK iyo Najuu Carraale muxuu yahay arooskan iyo goormuu dhacaya intaan u guda galin barnaamijkeena fadlan walaal macaan markii hore sadeeda channelkan aad soo booqato subscribe saaro gamaakana furo si kugu soo dhacaan waxyaalaan soo gelin markasta dad hornool joogtana muuqaalkan like saar una sii share gar asxaabtaada King CK oo ah YouTuber caan ah ayaa waxa uu soo bandhigay jaceylkiisa waxa uu sheegay Najuu Carraale in ay tahay qofka uu xiriirka la wadaagayo ama nolosha uu la wadaagayo King CK ayaa saacadihii ugu dambeysay social media waxa haystay hambaliyadiisa halkaasoo loo hambalyeynayay King CK iyo Najuu Carraale oo labadaba ah YouTubera caanka ah bulshada dhexdeeda King CK oo muddo badan iskaabulada ahaa ayaa waxa uu ka baxay markan waxa uu yeeshay xaas waxa uu sheegay in xiriir jecel uu ka dhexeeyo Najuu Carraale wuxuuna sheegay mar dhow in uu guursan doono bilihii ugu dambeysay social media kusoo badanayay ama Soomaalida dhexdeeda in YouTubera badan oo caan ah sida gabdho iyo wiilal ay iskuursadaan waxaana kow ka ah Atariisha Baadiyo iyo Nuruddin KL iyo YouTubera kale oo caan ah oo ayaguna lamaana ah social media wax soo geliya laba King CK oo arrintiisa la sugaya ama arooskiisa aad loo falanqeynayay goorta uu dhici doono dadyo badan oo ku xiran ay sugayeen arooskiisa ayaa wax uu ka dhawaajiyay in uu xiriirkiisa jecel soo bandhigay bulshadan u soo bandhigay mar dhowna uu ka xigi doonto arooskiisa iyo hambaliyadiisaba hadda waxa uu soo bandhigay waa xiriirkiisa jecel oo waxa uu sheegay in Najuu Carraale ay wax ka dhexeeyaan Najuu Carraale ayaa soo shaac baxday kadib markii Derislo asna YouTuber caan ah ay isla soo waxduubeen ama muuqaal isla soo sameeyeen sida madadaalo iyo barnaamijyo reaction ah Najuu Carraale ayaana markaas ku soo biirtay YouTube-ka wax ma jira inay iskuursadeen Derisla Cabdi iyo Najuu Carraale balse arrintii waa ay fashilantay oo waxa ay noqotay been hase yeeshee waxa arrinta la yaab kale ay tahay Najuu Carraale iyo King CK sidee isku barteen ama goormuu xiriirkoodu bilowday dadka qaar ayaa waxay ku noqotay keys balse arrinta waxay soo socotay muddo badan oo xiriir waxay lahaayeen muddo ilaa hadda dhowr sano hal sano iyo bar ah King CK ayaa taageero aad u fara badan ku leh YouTube-ka waxayna taageerayaashiisa ugu hambalyeynayeen farxad iyo reynreyn waxayna dhaheen isku waar iskuna barakooba taageerayaal badan oo CK ku xiran ayaa social media hambaliyadiisa waday saacadihii ugu dambeysana aad u qabsatay hadalhayntiisa baraha bulshada haddana baada Fandor Media waxaan leenahay hambaliyo isku waar oo wad qaba kala hela qisadiina jaceylna ka dhameeya King CK iyo Najuu Carraale waxaan saacadaha soo socda soo geli doonaa muuqaal aan uga hadlayna qisadii jaceyl Najuu Carraale iyo King CK iyo sida isku barteen halkaad nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandor Media oo alaabin sugu barnaamijyo xiiso leh warar iyo warbixino barnaamijkii gaabnaa ee ka diyaarinay King CK arooskiisa iyo Najuu Carraale intaas ayaan kusoo gabagabeynayna fadlan ha iloobin subscribe inaad saarato kambalekana aad furato si aad ula socoto barnaamijyada aan soo gelino markasta haddaad horna ula joogtana muuqaalkan like saar una sii share gar asxaabtaada waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sida aad noola socotaan markasta oo baada Fandor Media isku duwan oo idin leh kulanti wacan saaxiibayaal iyo King CK oo aan u leenahay hambaliyo